fadlan channelka subscribe noo dheh gambaleelka fur si ay kuu soo gaaraan fiidiyowyadeen aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada. Like, share, comment qurux badan waad mahadsan tahay. Kana fiidiyowga iga sugeyseen abaayooyinkii alaabtan horta waxay ka caawinaysaa qalqalka caadada haddii uu makaankaaga ay wasaq ku jirto, haddii ugxaantaada daciifta hormoonka haddii uu kaa qaldan yahay, haddii burubiyood lagaa soo sheegay, haddii tubooyinka kaa xiran yihiin intaba way kaa saacidaysaa insha Allah tacaala. haddii aa u qaadata sida saxda ah ama aad joogtayso wax badan waa ka faa'iidaysaa. Ka faa'iidaysi wacan alaabta sida loo isticmaalayo sida aan isugu dardaraayo. Ka faa'iidaysi wacan waa fiidiyowga aad iga codsateen. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada walaalahayga qaaliga meel walba oo iga daawanaysaan nabad iyo caafimaad ku daawada. waa walaashiin xushmo oo idinla soo dhawaada niyad furan iyo qalbi saafiya. halkaad iga daawanaysaan waa channelkayga xushmo halgawan. soo dhawaada walaalahayga qaaliga. ayaantaan video maana soo sameynin wax badanna way igu soo laalaabteen kommentiyadiina. xushmo noo soo geli waxyaabo dabiiciya. videoga hore aan soo geliyay oo aan kaga hadlayay gabdhaha ku dhiman periods-ka waxyaabo fara badan hormoonka gabdhaha ka qaldan yahay ayaa waxaa la yiri haddii aanan heli karin daawada wax herbal ama dhir dabiici oo yacni daawadaas u dhiganto haddii aad taqaano noo soo geli xushmo. wax badan gabdhaha way igu soo celceliyeen laakiin aniga ayaa mashquulay. wax walbana waxaa la yiri horta waqti ayay leedahay amar walban waqtigeeda ayay falantaa la yiri. marka waqtigan ayaa qorneed inaan idiin soo geliyo walaalahayga qaaliga. soo dhawaada meel walba oo iga daawanaysaan nabad iyo caafimaad ku daawado. waan idinka raali gelinayaa videoga aan idinkala soo habsaamay. wax walbana saacad ayay leeyihiin waqtigan ayaa qorneed inaan idiin soo geliyo. ka faa'iidaysi wacan ayaan idin leeyahay. waa kana videoga waan idiin soo diyaariyay. ka faa'iidaysta meel walba oo iga daawanaysaan waxaan idin leeyahay caafimaad taam ah ilaahay ha idin siiyo. meel walba oo aad xanuun ka tabanaysaan ama aad isleedahay culays baa idinka haayo ilaahay ha idinka qaado culayska. xanuunkana ilaahay ha idinka dulqaado. cudurka ilaahay caafimaad ha idinkugu bedelo ayaan idin leeyahay. soo dhawaada walaalahayga qaaliga sharafta leh ee igu xiran channelkayga sida quruxda badan ila socotaan horta waan idinkaga mahad celinayaa. jazaakallaahu khayr ilaahay abaal ha idinka siiyo sida quruxda badan oo kommentiyadiina dhiirigelintii ducada isugu jiro aad igu soo gudbisaan. jazaakallah waa idinkaga mahad celinayaa. miihi aniga qof abaal daran waan idinkaga hayaa abaal. asxaabteyda cusub igu soo biirtay waa mahadsantihiin. kuwii hore igula jooga idinkana maasha Allah waa mahadsantihiin dhammaantiin. inaan idiin mahad celiyo yacni kama daalo. waa idiin mahad celinaya mar walbaba idinka adigaan wax idinku ahay. soo dhawaada gabdhaha walaalahayga ah ee igu xiran ee sida quruxda badan ee sharafta leh kommentiyadooda wanaagsan iigu soo qoro. jazaakallah ilaahay abaal ha idinka siiyo. adinkana waxa aad tabanaysaan ilaahay si sahlan ha idinku siiyo. meel walba ka xanuunsantihiina ilaahay caafimaad ha idinka siiyo. caafimaadka ilaahay baa horta bixiyo. annaga waxaan wadnaa waa dadaal baan wadnaa. adinkana dadaalka waa lama huraan. ilaahay wuxuu ku yiri dadaal anigana waan kugu garab galayaa. caafimaadka ilaahay baa keeno awlaadana ilaahay baa keeno. abaayooyinka awlaad raadiska ah awlaad baari ilaahay ha ku arsaaqo. intii haysatana awlaadoodana ilaahay baari ha uga dhigo. inta xanuunsanaysana ilaahay caafimaad ha ugu bedelo. xanuunka haayana ilaahay ha ka dulqaado. soo dhawaada waa mahadsantihiin sida sharafta iyo quruxda iyo cisiga leh ee aad iila socotaan waa idinkaga mahad celinayaa. maasha Allah. markaan ducadeena iyo dhiirigelintiin iyo kommentiyada quruxda badan aad ii soo qoraysaan aan arko maasha Allah waan ku farxaa. waxaan dareemayaa inaan garab iyo gabdho iyo asxaab yaa walaalo fara badan inaan ku leeyahay halkaan ayaan dareemayaa.
waan idinkaga mahad celinayaa. Jazakallahu khayr asxaabteyda meel walbada adduunka ka joogtaan. Ilaahay caafimaad ha idinku siiyo oo caafimaad taam ah ilaahay ha idinkaga rajaynayaa. Waxaan guda gelaynaa hadda diyaarintii alaabtii. Nala daawo fiidiyowga dhammayso ka faa'iideyso. Hadda alaabta halkaa igu diyaarsan waad ujeedaan 4 waal 4 dawaal waxaa soo shaneeyo weelka hadda qorfaha oo ku jiro sidaad ujeedaanba ka hadda gacanta ku haya waxaa ku jiro alaabtii gebigeed markaan isku soo wada diyaariyay ayaa ku jirto. Idinka ayaa idinku tusayay inta ay ka kooban tahay, laakiin kan ee baaquliga uu ku jiro macalgada waa alaabtii shiidan oo diyaarsan. Inta hadda taa waa xabad rashaadkii, halka xabad rashaadka ku jiro halka waxaa ku jiro waa qorfihii. waxaa kaloo halkaas iyadana ii yaalo waxa waaye waa xulbadii oo shiidan iyo sactarkii waaye. Intaasoo geed ay ka kooban tahay, intaasoo geedoo la isku dardaray waaye alaabta. Ka faa'iideysi wacan waa fahanteena hadda aan rajaynayo waa 4 tawaal oo inta ku jirto. hadda waxaa ku jiro waa xulbada ayada ayaa shiidan oo way shiidan tahay, way diyaarsan tahay. haddii aad heli karto ayadoo miro ahna waa soo iibsan kartaa, wax dhibaataa ma lahan. halka sactarka ku jiro, halkan waa qorfihii, halkaani waa xabad rashaadkii ama shanfaxdii hadba sida u taqaanid. marka maanta dhirteena ama daawadeena intaanay ka kooban tahay, intaana la isku dardarayaa, intaana la habaynayaa. ka faa'iideysi wacan faa'iidadeeda iyo waxtarkeedana maasha Allah. waa ka markii aan isku soo diyaariyay sidaasay ku soo baxday budada ee daqiiqa ah ku soo baxday. xulbada ayadaaba daqiiq aheyd waxaan ku daray adiga dhowr macalga oo macalgadaas yariiska ah iyo intaasoo aan ku soo dhambalay makiinada cabitaanka qaybta dhambalka ayaan ku soo dhambalay. marka sidaasay noogu soo baxday. ka faa'iideysi wacan. hadba qofka sida uu rabo ayuu horta u isticmaali karaa, asiga ayay ku xiran tahay. haddii aad rabtid waxaad u isticmaali kartaa biyihiyo kulul oo qandac ah ayaad ku isticmaali kartaa, waad ku darsan kartaa shaahiya ku darsan kartaa. laakiin waxaa kaaga muhiimsan taas in aad malabka aad ku darsato. haddii aad malab saafi aad helayso in aad ku qasato malabkii oo saafiya. gabdhaha qaara marka waxay dhaheen asxaabteeda WhatsApp-ka groupka waxay uga soo dhaheen malabka waxaan ku qabnaa xushmo xasaasiyadan ku qabnaa, qof uu i dhibayaa ma cuni kariyo ku leeyahay. marka haddii aadan malabka ku cuni karin sida aad doonto ayaad u isticmaali kartaa. muhiim calooshaada oo maran oo baahan oo aadan waxba kala cunin calooshaada waxba kaga horeynin ayaa lagaa rabaa kaliya inaad isticmaasho. waa kaasaa shanfaxda sidaasay u taalaa. xabad rashaad ama shanfax hadba sidaa u taqaanid. waa qorfe oo qofaan aqoonin ma leh. waa xulbadii iyo sactarkii waad aragteen caleenta sactarka ayadana sida u taalo. marka waxaa sameynaysaa haddii kalena biyo kulul ayaad u isticmaalaysaa oo koob biyo kulul oo aad u karkarsanaa soo qaadanaysaa. 2 qaado oo qaadada yariista ah ayaa ku shubay, waa ku walaaqay cabbaara ku dabooleysaa si ay iskugu milmaan oo dheecaankaas uu ugu baxo biyaha. aad sameynaysaa waa ku haysanaysaa. haddii aad rabtid oo biyaha kaligood aadan cabi karin inaad dhadhan u samaysid aad rabtane shaahaada ayaad ku darsanaysaa. subaxdii hore ayaadna qaadanaysaa, calooshaada oo baahan ayaad qaadanaysaa. habeenkiina ayadana sidoo kale waxaad sameynaysaa adiga oo baahan ayaa lagaa rabaa. ama marka aaba seexanaysa inaadan waxba ka dambeeya aadan daawadan aadan cunin, marka kuugu dambeyso aad seexanaysid inaad isticmaasho. waa kaasaa sidaas waaye, sida caleenta shaaha camal waaye. sidaas budadaha laga rabaa inaad sameyso. haddii aad isticmaali karto malabka waxaan idinkula tali lahaa inaad mar walbaba malabka aad ku isticmaashaan, waayo malabka asigaa daawo ah. malabku waa min daawaad wax badanoona kuu qabanayaa. isku day ama isku dhib waxaana loo dhibtoonaa la yidhi horta dheeftooda lama helo. malabka haddii aadan ku xanuunsanaynin xitaa dhadhankiisa uu ku dhibaayo
isku dhib. Hadda waa kaasaa ani waxaan ku qasay waa malabkii iyo alaabtan. Waa sidaasoo ku soo baxayaa. Dhadhankiisana waa macaan oo adiga waxa dhibsanaysid ma ahan ama wax qaraara ma ahan. Waa fahanteen soo maa? Marka sidaan samee malabka kaaga wanaagsan. Malabkaada ku isticmaal haddii aad caadada aad ku dhibaatoonaysid oo kale, haddii aad infection leedahay, haddii ay tubooyinkaa xiran yihiin, ugxantaada haddii ay daciif ay tahay, intaaba wuu kaa kelin gareynayaa, wuuna kaa saacideynayaa. Marka isku day mar walbana waxaa lagaa rabaa wax walbaba inaad u dhabar adeegto, aad u gegsato, aad u adkaysato ayaa loo baahan yahay. Marka haddii aad malabka ku isticmaali karta ay suurtagal ay tahay in aad malab isticmaasho, malabka ku isticmaal. Malabka ayaa kaaga wanaagsan. Malabkan laftirkiisa asiga ayaa daawo ah oo waad aragteen waa la isku daaweeyaa. Jirooyin fara badan ayaa malabka lagu daaweeyaa. Marka waxaa muhiim ku ah malab saafi haddaad helisid inaad malabkaada saafiga aad ku isticmaasho. Xitaa haddii aadan hore u isticmaali jirin in aad isku dhibto oo aad u adkaysato. Saa waa daawo. Daawona waxaa la rabaa dulqaadaa la rabaa inaad samayso, inaad dulqaad yeelataa lagaa rabaa. Xoogo wax yar oo waxay leedahay mataqaanaa hangar yar ama shinif yar oo qofka uuna jeclaysaneyn yacni riixda shirka ka soo baxaya inaa isku dhibta ayaa la rabaa oo loo baahan yahay oo aad ku qasabto naftaada ku qasabto. Saa waxaan daawo ayaa u isticmaalaysaa oo aadan dhihin way dhibaysaa, way igu soo uraysaa. Waxaa kaaga muhiimsan faa'iidada aad ka helaysid ama caafimaadka aad kaaga helaysid ayaa kaaga muhiimsan. Isku dhib indhaha isku qabo. 2 qaando ka cab. Markaasaas malabka aad ugu qasatid. Insha Allah tacaala waxaan idin rajaynayaa caafimaad taama ama caafimaad degdeg inuu Ilaahay idin siiyo. Qof walbana meesha uu wax ka tabanayo oo Ilaahay caafimaad uu ka siiyo. Wax walba waxaa la rabaa dhabar adeegaa la rabaa. Marka ha dhihin ma samay karo, waa samay kartaa. Isku qasab. Tan kale waxa waa mataqaanaa waxaan markii ay mudaawaad yihiin ama ay dhir yihiin dabiiciya. Anaga horta kolay taba dhakhtar ma nihin. Inta anaga aan ka isticmaalay yacni ama aniga intii aan ka fahansanaa oo aan ka aqaano ayaan idinkugu soo gudbinayaa. Way jiraan gabdho abaayooyina oo bartay dhirta oo cilmigeeda leh way jirtaa laakiin aniga biihi laakiin aniga intii aan ka isticmaalay ama intii aan wax kii ogahay ayaan wax idinkaga soo gudbinayaa. Marka dad waxa ku dhahaya dhir daawo dhireed ama la isku aamini karo saasaa lagu noqdaa dhahayo. Waxaas ma wanaagsano. Waxaa la niyeystaa khayrka ayaa la niyeystaa. Sharta lama niyeysto. Waxaa la yiri inama alacmaalu binniyaada la yiri wax walba marka wixii aad niyeysatid waad helaysaa. Haddii aad khayr ka niyeysatidna waad ka helaysaa. Haddii shar aad ka niyeysatidna waa ka helaysaa. Marka wax walba maxaa lagaa rabaa mataqaanaa adiga in aad khayr ka malaysaa lagaa rabaa oo mar walba waxaan aad khayr ka malayso. Laakiin haddii aad shar ka malayso wax walba aad shar ka malayso yacni waxba laga yaabaa waxaan inaadan ku daawoobin amaba aad ku xanuunsato. Laana waaba shaki haysaa soo maha. Qofka marka haddii uuba shakinaayo ama weli armaan san ku noqdaa, armaan ku jiradaa, armaan ku xanuunsadaa uu leeyahay. Qasab inuu qofka ku xanuunsanaayo. Biyahan laftirkooda oo waxba aan lagu darin oo waxba si ka naqan haddii aad niyeysatid inaad ku xanuunsanaysid ama ay si ay yihiin adigii marka lagu soo socdayba markaa xanuunsan rabtay ayaa caloosho kale lagaa qabana ama si kale ala biyihii yaaba iyo maba dhaafinba. Marka haddii aad dhahdo dhirta saan waaye dhirta saana lagu noqonayaa min daawaadka la isku aamini kara dadaa ku dhahayo. Marka haddii adiga aad niyeysatid shartiya ka helaysaa. Haddii aad khayrka ka niyeysatana khayrka ka helaysaa. Marka waxaa lagaa rabaa adiga mar walbaba inaad khayrka aad ka niyeysatid wax walba aad malaynaysidna khayr aad ka malaysidaa lagaa rabaa. Marka faa'iideysi wacan ayaa idin leeyahay walaalayga qaaliga. Meel walbood iga daawanaysaana nabad iyo caafimaad ku daawada ayaan idin leeyahay. Aniga marka intii aad iga sugayseen oo aad dhahayseen xushmo noo soo geli waa kaasaa ha iga harto. Anigana waa ka intii aan idinkala maqnay videogana waa idinkaga raali gelinayaa xaalad jirta mashquul jira awgeed ayaan idinkugu soo gudbi waaye. Idinkana Ilaahay daawaha idinkugu daro.
waxay aad u anficaysaa waa idiin soo sheega alaabtan gabdhaha yacni u aad u anficaysa gabdhaha xagga qalqalka caadada ama periods-ka ku dhiban oo ka qaldan yahay waad aragtay gabadha iyadoo yar ay caadadii ka tegaysaa ama way ku xanuunsanaysaa ama way ku soo laablaabanaysaa waqtigoodii oo la gaarin ku soo laalaabanaysaa gabdhahaas aad ayay u anfacaysaa wax kale ay anfacaysa waxaa mataqaanaa xabaturashaadka waxay aad ugu wanaagsan tahay xagga iyo kobcinta ugxaanta ay aad uga fiicanta waad aragteen gabdhaheenna mar walba waxaa la leeyahay ugxaantii kaa dhamaatay ugxaantaadi waa daciif sidaasaa lagu leeyahay marka ugxaantaadii ugxaan fuul ayay kaaga dhigaysaa marka intaasba way kuu qabanaysaa oo shaqo sactarkoo kale makaankuu kuu nadiifinaya hadduu makaankaada wasaq iyo waxaas leeyahay oo dhan wuu kuu nadiifinaya qorfaha asigana sidoo kale xulbada iyadana kadaalika sidoo kale malabka waad ogtihiin asiga daawadiisa laydinkagama sheekeynayo marka waxa waaye dhir intaba maasha allah intaba daawo marka ha laga faa'iidaysto ka faa'iidaysi wacan ayaan idin leeyahay intaba mid aan daawo ahayn male gebigoodu waa daawo waxaana ku daawoobayo qofkii uu ilaahay daawo ugu daray ilaa maa ilaahay inuu daawo kugu siiyo maahane annaga waxba ma daawey karno mar kastana waan idiin sheegaa marka adiga niyeyso inaad ku daawoobaysid ilaahayna uu daawo kuugu daro gabdho badan abaayooyin badan isticmaalay way jirtaa oo ilaahay daawo ugu daray oo ilaahay owlaad ku siiyey adinkana ilaahay daawo ha idinkugu daro owlaad kheyr qabtana ilaahay ha idinka siiyo waxaan idinku sagootinayaa kheyrka ayaan idinku sagootinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh